كل ونكسن داوديال ملو joogtaan kusoo dhawaada channelkeena Rugta TV hadad channelka cusub tahay fadlan channelka subscribe saar video-gana like saar muuqaalkana si share garee oo la wadaag asxaabtaada watay daawadayaal halkan kuma soo bandhigno waxyaabo dhaafsiisan shuruuca YouTube sida daawadayaal waxaan ku soo bandhignaa xaqiiqooyinka dhabta ah ee quseeya hadba waxa social media taagan daawadayaal ku soo dhawaada Rugta TV oo alaabo uga barateen xaqiijinta wararka iyo waxyaabaha social media dhaxsada daawadayaal mawduucan maanta ka hadal doona ayaa noqon doona khasra silimo oo soo daafacday ugbad aragsan iyo saygada cusub ee Elias Idris daawadayaal fanaanka qamar suugaan laftarkiisu isboo waa fanaan maxay soo difaaci weeday dhowr qodob ayaan halkan ku qaadaa dhigi doona daawadayaal ku soo dhawaada Rugta TV fadlan channelka hadii aad ku cusub tahay don't forget subscribe like iyo comment muuqaalka si share garee oo la wadaag asxaabtaada ku soo dhawaada muuqaalka maanta iyo la socotaan bariyahan ugu dambeysay waxa social media haystay ugbad aragsan iyo qamar suugaani oo iyaguba isficil garaacay xagga ugbad aragsan ay nin kala guursatay qamar suugaani nin kala guursaday balse markii hore ay ahayn lamaane wada jooga daawadayaal fanaanada khasra silmo ayaa iyaduna ku soo biirtay saaxadda kacsan ee qamar suugaani iyo ugbad aragsan iyadoo ay halka kala qayb qaadan doonto waxyaabo kutirikuteena daawadayaal fanaanada khasra silmo ayaa si kulul uga hadashay mawduucan haatan taagan ee qamar suugaan iyo ugbad aragsan iyadoo ay ku tilmaantay inuu yahay qaran dumis macnay reer dumay oo kale daawadayaal sida ogsoontiin xidigada khasra cabdi silmo ayaa iyada iyo mursal oo wada jooga lagula kacay falkan oo kale haatan qamar suugaan iyo ugbad aragsan lagula kacay ayaa lagula kacay iyada oo joogta xidigaha geeska fanaanada khasra cabdi silmo daawadayaal sida ogsoontiin fanaanada ka ag sawiran ee Asmaloof iyo waxa loo aaneynayay inay ka dambeeyeen kala tageeda iyo teeda kale ee Asmaloof iyaduna leeyahay daawadayaal fanaanadan waxay ahayd khasra cabdi silmo fanaanad runtii dulqaad badan oo aad falal xun loogu kacay iyadoo ay daawadayaal laga qaaday ninkeedii haddana daawadayaal mar quriyata kama hadal balse iyadu waxay aaminsan tahay inuu mar uu soo noqon doono oo ay isku soo dhici doonaan Hooda Cabdiraxmaan iyadu daawadayaal waxay ka tiri arrinkan inuu yahay reer dumay qaran dumis iyadoo ay barteeda Instagram-ka ku soo qortay ma ardhoweyto anagoo aan qoraalkeeda soo qaadan karin balse daawadayaal waxaad tagi kartaan Instagram-ka idinkoo soo qaadanaya ama soo akhrisanaya soo dalacanaya waxa ay bartaa ku soo qortay daawadayaal xidigada khasra cabdi silmo ayaa lagu tiriyaa dadka ugu dulqaadka ee bawsiye dulqaadkana hibada u leh iyadoo ay muddo 3 sano mise 2 sano ay soo samreysay xatalan kooxdii baa laga saaray daawadayaal iyadoo ay marxaladaas oo dhan ku soo jirtay ay ugbad aragsan iyo ay haatim saxada ugbad aragsan ay kacsan ay kula soo talisay in ay ugbad aragsan ay u dulqaadato waxyaabo social media ay tahayna propagandada social media taaganita isku dirtay iyada iyo mursal oo kala fogeysay daawadayaal waxa kale ay kula talisay ugbad aragsan inay saygeedan cusub haatan ku dhagto oo aanay sii deynin balse daawadayaal khasra cabdi silmo waxa ay tahay gabadha ugu dulqaadka badan xagga dumarka daawadayaal xidigan aan dhalineysna qamar suugaan ayaa isna saaxadiisu aad u kacsanay isagoo la soo duubay kalba muuqaal gabadha cusbeed oo guursaday fanaanada imika fanaanadiyan oranne wata daawadayaal intaasna waa kaftan inantii ka timi Yurub iyo xagga ma Yurub ka yeeman bilaabay Mareykan bay ka timi malaha daawadayaal intaasna waa kaftan inantii uga timi xagga iyo dibadda qamar suugaan balse daawadayaal waxaan ku maqlay xan dhoofis fanaankan aan dhalin laakiin talo qof dhalay qof aan dhalin maxay ku fasheelanto wayaabe in afkiisa uu ka qaranayaa talo la hadleemayada wallahi ma garan karno daawadayaal intaasna waa kaftan labaad fanaanka qamar suugaan haduu daawanay muuqaalkan waxa uu dhilaa naga raali ahaw daawadayaal xidigan aan isaguna dhalin ayaa waxa la sheegayaa inuu saacadiisu kacsan tahay isagoo uu loo dhoofin doono xagga iyo Mareykanka xataa baasaboorkiisa loo soo dhameeyay isagoo uu qabo fanaanada ugbad aragsan daawadayaal heesta xafladda meherkeena iyo inuu dhow yahay xilkeeni u sheeg xaaskeygiye daawadayaal heestaas waxa loo qaadayay gabadha Nasiim Cabdullaahi Sooraan ee uu guursaday isla imika daawadayaal xidigan qamar suugaani ayaa ah xidiga sanadka 2017 intuu soo baxay 2019 xatalan haysta saaxadda fanka daawadayaal barnaamijku waxa asaasi halkan waa Rugta TV hadii aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe saar dhanka kale daawadayaal fanaanada ugbad aragsan ayaa iyadana laftarkeedu saaxadeedu kacsan tahay oo waayadan dambe laga deerinayay iyadoo ay kolacay saacala ku soo qoraysay barteeda Instagram-ka
dhanka kalena ay ku soo qoraysay heeso calaacal iyo foorjo iyo cay iyo waxyaabo sidaasa. daawadayaal waxaa kaloo aan ku maqlay in Qamar Suugaani ay codad badan u soo duubtay balse aanu soo bandhigin oo si ugu hanjabay inuu soo bandhigi doono haddii ay ka dayn weydo calaacal ka badan ay u saarayso. daawadayaal fanaanadan Ugbaad Aragsan ayaa bari waayadan ugu dambeysay saaxadeeda kooxsaneed halkii ay kala tartamaysay fanaanka Qamar Suugaani iyadoo ay kula tartamaysay dhanka guurka iyadoo ay bartaa ku soo bandhigtay nin ay ku cusub oo musician Ilyas Idris aan dhaho. daawadayaal saaxada fanku way kacsan tahay runtii labada fanaan marka loo eego. daawadayaal dhanka kale waxaan maqlay xan Hodan Cabdiraxmaan inay qayb ka lahayd isku dirkii labada fanaan Ugbaad Aragsan iyo aan dhahdo Qamar Suugaani. daawadayaal halkan waa Rugta TV haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan channelka subscribe saar fiidiyowgana like saar muuqaalkana sii share garee. daawadayaal sidaad ogsoontihiin fanaanada Ugbaad Aragsan iyo Qamar Suugaani waxay isqabeen muddo badan ilaa iyo 3 sano miyaan oran karnaa mise 2 sano. daawadayaal markii xigtiga iska ku soo biirtay in yar kadib uun feesdaada dumar ugu sito taswiirtadan dayaxa jeclaystay inaan dul suro waxaan ka cabsaday darta inay xidiguhu damaan. daawadayaal markuu heesta soo saaray ayay iskuursadeen balse ilaa iyo xatalan daawadayaal hal qof isumay dhalin xagga eebe weeye. daawadayaal sidaad ogsoontihiin dhalmadu xagga eebe weeyaane balse daawadayaal waxay isqabaan muddo 3 sano mise 4 sano ku dhow ay isqabaan. daawadayaal wali wax ubadeysma hayaan. daawadayaal hadalkii ka dhawaajiyay ahaa waan ismudanahay ayaa suurtagal noqon kara bal daawadayaal waxaan eegi doonaa gabadhan kale oo guursaday imika inay wax ubado keeni doonto ifka iyo in kale. daawadayaal kastoo xagga dhalmadu eebe tahay balse daawadayaal afkiisa wuxuu ka qirtay inuu ismudo isagu oo aan wax ubado rabin. marka daawadayaalka waxay nooga cadaatay inuu yahay fanaan wax walba sameyn jiray oo aan abuurta eebe aan wax ku iman jirin. daawadayaal fanaanada Khadra Cabdisilimo sidaad ogsoontihiin waxay soo martay marxalado kala duwan iyadoo ay nolosheeda ku soo qaadatay intii ugu badnayd lamaane balse daawadayaal waqtiyadii ilaa 2015 ilaa iyo xatalan saaxadeedu way kacsanayd iyadoo ay waxeeduba isu duuduub ahaayeen kana dambeeyeen inay waxaas oo dhan ay lama filaan kaga dhigaan Asmalof iyo fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. daawadayaal xan kalena waxaan ku maqlay in fanaanada Asmalof $20,000 ay u qaadatay fanaanada Khadra Cabdisilimo iyo Mursal Muuse kala tagooda oo ay rabtay inay Hodan Cabdiraxmaan xagga ugu soo jiido. daawadayaal halkan waa Rugta TV haddii aad channelka ku cusub tihiin fadlan subscribe saara fiidiyowgana like saara muuqaalkana sii share gareeya oo la wadaaga asxaabtiina. watay daawadayaal waxa kaloo ay jirtay daawadayaal in fanaanada Khadra Cabdisilimo runtii la dhibay iyadoo ay ama social media noqoto ama meel kale ha noqoto runtii aad iyo aad loo dhibay fanaanada Khadra Cabdisilimo. daawadayaal Khadra Cabdisilimo waxa kale ay kula talinaysaa labadan fanaan Ugbaad Aragsan iyo Ilyas Idris inay iska ilaaliyaan waxyaabaha propagandada ka soo baxaya inay muuqaalo iska soo duubaan. dadku waxay jiri muuqaaladaasi waxay u baahayaan inay social media ku baahan baa suurtagal noqonaysa dadka qaarba si u fasilaan. daawadayaal dadka qaarba markay si u fasilaan runtii waxa noqonaysa in idinkii mushkilad ay ku noqoto. marka daawadayaal waxay oranaysaa kale iska daayo waxyaabaha kale social media la soo dhigayo kana hada halka ana ku aamuso iskana dhiga programka guurka iyo waxyaabahaas Qamar Suugaani afkana ka dhig. daawadayaal sidaad ogsoontihiin dhanka kale fanaanka Ilyas Idris ayaa fanaanka guursaday Ugbaad Aragsan kolleyda wada socotaano social media qof aan la socon ma jirto qof aan YouTube daawanayno social media la socon ma jiro. daawadayaal dhanka ayaa ninka guursaday Ugbaad Aragsan dhanka kale daawadayaal Ugbaad Aragsan ayaa iyaduna gabadha Qamar Suugaani hore iyadoo ay halkaas kaga timi irbada usturay odaygu ayago baxsatay aawadi. daawadayaal halkani waa bandhiga Rugta TV haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan rukunta oo subscribe saara fiidiyowdana haddii ay idin soo gaaraan like saara muuqaaladana sii share gareeya oo la wadaaga asxaabtiina. daawadayaal halkani waa Rugta TV fadlan channelka subscribe saara. watay daawadayaal mawduucuna waxa uu marayaa meelo daawadayaal sidaad ogsoontihiin fanaanada Khadra Cabdisilimo ayaa tacadi lagula kacay dhanka iyo xagga fanka iyadoo xataa kooxdeedii laga saaray oo loo horsaday. sidaad ogsoontihiin daawadayaal fanaanada Khadra Cabdisilimo ayaa dardaaran aada siisay balse daawadayaal Instagram-keeda waad gali kartaan oo waad soo akhrisan kartaan mawduuca ay ka hadlayso. watay daawadayaal halkani waa Rugta TV haddii aad channelka aad ku cusub tihiin fadlan subscribe saara barnaamijku waa xasaasi. daawadayaal fanaanada Khadra Cabdisilimo inta waxay ugu dartay oo ay ugu raacisay inay sidaa ku aqal galaan
oo aanay mar dambe kala tegin labada fanaan ee haatan la isu calfay halka kale oo ay Qamar Suugaani iyo gabadhiisa cusub ee iminka aroostay ee maxaa la yiraahdaa Nasiim Maxamed Cabdilaahi Sooraan aanay wax jawaab siinin daawadayaal halkani waa Rugta TV channelka dadku cusubtiin mar labaad iyo mar saddexaad subscribe saara fiidiyoyadana like saara muuqaaladan si share gareeya aad baan idin salaamayna meel joogtaan ballanteenu waa fiidiyowga